Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Waxaan uga hadli doonaa taariikhdii dowladda Cabbaasiya. Run ahaantii waa taariikh dheer aan lagu soo koobi karin muuqaalkan. Laakiin waxaan isku dayayaa in aan soo koobo. Ku soo dhawaaw daawade. dowladdii Cabbaasiyiinta waxaa loo nisbeeyaa dhashii Cabbaas bin Cabdilmuttalib oo ahaa nebiga adeerkiis. Dhammaadkii khilaafadii Umayyadeed waxaa soo baxday suuqgeyn la suuqgeynayo Cabbaasiyiinta. waxaana hawshaasi waday Abu Muslim al-Khurasani, waxayna garab ka helayeen Farisiyiinta oo ku kacsanay dowladdii Umayyadeed ee noqotay Carabta kaliya. waxaana isxulufaystay Abu Muslim al-Khurasani iyo Cabbaas as-Saffaax, wuxuuna Abu Cabbaas noqday khaliifkii muslimiinta ee dhulka Khurasaan iyo Faris. waxayna ahayd dowlad ka madax bannaan Umayyadeed, waxayna Cabbaasiyiintii calan ka dhigteen calan madow. markii ay xoogaystay dowladdii Cabbaasiyiinta waxa ay dirtay ciidan uu hogaaminayo Quxduba bin Shayba, waxa ayna u direen Ciraaq. Quxduba iyo ciidankiisii ayaana jebiyey dowladdii Umayyadeed kana qabsaday Ciraaq. mar kalena waxa ay ciidan weyn u jiheeyeen dhulka Shaam, waxayna dowladdii Cabbaasiyiinta ku adkaaday dagaalkii Webiga Saad. dilkii khaliifkii ugu dambeeyay ee Umayyadeed kadib waxaa khaliifkii ugu horeeyay dowladda Cabbaasiya noqday Abu Cabbaas as-Saffaax. waxay galeen Cabbaasiyiintii magaalada Dimashq oo ahayd caasimadda dowladda Umayyadeed, waxayna halkaas ku laayeen badiba qoyskii Umayyadeed. waxaana u suurto gashay mid ka mid ah xubnaha qoyska Umayyadeed inuu u cararo dhulka Andalus, halka uu ka asaasay imaarad Islaamiya oo ka madax bannaan dowladda Cabbaasiya. waxaa halkan ka bilaabanaysa waqtigii koowaad ee Cabbaasiyiinta oo ahaa 100 sano, waxaana xilka u kala dambeeyay ilaa 10 khaliifo oo taariikhdooda ay ka bilaabanayso 132 hijriyada ilaa 232 hijriyada. Cabbaasiyiinta waxay xilalka sarsare u dhiibi jireen Farisiyiinta si ka duwan Umayyadeed oo iyaga Carabta kaliya garabsan jiray. dowladdii Cabbaasiyiinta furashooyin badan ma sameeyeen sidii Umayyadeed, laakiin waxay ku dadaaleen kor u qaadida aqoonta. markii uu khaliifada la wareegay Abu Jacfar al-Mansuur uuna la kaliyoobay, waxay dagaalo dhiig badan ku daatay ay dhex mareen Abu Jacfar al-Mansuur iyo adeerkiisa Cabdullah ibn Ali. wax yar kadibna waxaa soo gabagaboobay kacdoonkii Calawiyiinta ee Xijaas oo hogaaminayay Maxamed Labsi. Abu Jacfar al-Mansuur wuxuu aasaasay magaaladii Baghdad uuna caasimad ka dhigtay. dowladdii Cabbaasiyiinta waxa ay gaartay heerkeedii ugu sareeyay xilligii Haaruun ar-Rashiid, wuxuuna khaliifada la wareegay 170 hijriyada. Rashiid wuxuu xilalka wasiirada u dhiibi jiray baraamikada ka hor intii ay ku inqilaabin dhacdadii caanka ahayd ee loo yaqaanay Nakbatul Baraamika. dhimashadii Haaruun kadib waxaa xilka isku qabsaday wiilashiisii Amiin iyo Maamuun, taasoo ugu dambeyntii ku dhamaatay dilkii Amiin iyo inuu xilka la wareego Maamuun. xilligii Maamuun waxaa dhacay kor u kac aqooneed, wuxuuna dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqyadii turjumaadaha ee cilmiyadii falsafadii Gariiga. wuxuuna aasaasay jaamacaddii Baytul Xikma ee ku taalay Baghdad. madhabka dowladdana waxa uu noqday Mu'tazila, waxaana halkaasi ka dhacday khilaafooyin badan, waxaana aad loogu dooday arrinta abuurka Quraanka. markii uu khaliifada la wareegay al-Mu'tasim billah, shaqooyinkii uu qabtay waxaa ugu muhiimsanaa dhismaha magaalada Simraa iyo furashada magaalada Camuriya oo ahayd halkii ay ka soo jeedeen asal ahaan Imbiradoriyadii Bisantiyiinta, qoyskii maamuli jiray. al-Mu'tasim waxa uu ku tiirsaday tiro badan oo Turki ah, wuxuuna ka dhigtay ilaaladiisa khaaska ah, wuxuuna u dhiibay xilalka sarsare ee dowladda Cabbaasiyiinta beddelkii Farisiyiinta. laga bilaabo waqtiga waxaa xoogaysanayay Turkida oo xilalka waaweyn ku sii badanayay. waqtigii Cabbaasiyiinta ee labaad wuxuu ahaa 200 sano, waxaana u kala dambeeyay 15 khaliif. waxaa sii socotay talacsiintii Turkida ilaa ay gaareen guddoomiyeyaasha gobollada, hoggaanka ciidanka iyo wasiirada, iyo hoggaanka ilaalada khaliifka ee gaarka ah. waxay noqdeen dowladdii Cabbaasiyiinta dowlad aan awoodin midowga dowladooda, waxayna u qaybsameen dowlado badan oo taabacsan magac ahaan khilaafada. dhulkii Maqrib waxaa ka soo baxday dowladdii Adaarisah iyo Akhaalibtii. Andalusna waxay noqotay dowlad Umayyadeed ah oo madax bannaan. dhanka Masarna Axmed bin Duuluun ayaa aasaasay dowlad uu ugu magac daray dowladda Duuliyuun. dhanka barigana waxaa soo baxday as-Saqaariyuun iyo al-Buwayliyuun oo haysta dhulka Faris. dhulka Shaamna waxaa haystay al-Hamdaaniyuun.
xilligii almutawakkil billah wuxuu isku dayay in uu bedelo madhabkii dowladda ee muctasilada ahaa una bedelo madhab shaafici sunni ah. xilligii almudiic billah waxaa curday dowladdii faadibiyiinta taasoo qabsatay dhulkii maqrib iyo masar, waxayna aasaasteen magaaladii qaahira si ay caasimad uga dhigtaan. caalamkii islaamka markaan wuxuu u qaybsamay 3 khilaafo oo iska soo horjeeda, waxayna kala ahaayeen khaliifadii cabbaasiyiinta ee Baghdad, khaliifadii faadimiyiinta ee qaahira, iyo khaliifadii umayyayiinta ee Andalus. markii uu xilka qabtay alqaa'im billah waxaa bilowday waqtigii saddexaad ee cabbaasiyiinta, waana waqtigii ay salaajiqada qabsadeen dowladda, waxayna ahayd ku dhowaad 200 oo sano oo ay xukunka iskaga dambeeyeen 11 khaliif. xilligii qaa'im billah waxa uu suurta gashay faadimiyiinta inay qabsadaan caasimadii Baghdad, waxayna ku sigteen in ay ridaan khaliifadii cabbaasiyiinta. waxaa garab siiyey suldaankii salaajiqada ee Ertugrul Beg oona u soo gurmaday dowladdii cabbaasiyiinta kana badbaadiyey faadimiyiinta. markaa kadib waxay salaajiqadii gacan sare ku yeesheen dowladdii cabbaasiyiinta. Ertugrul Beg kadib waxaa suldaanka salaajiqada noqday Alp Arslan, kaasoo bisandiyiintii ku jabiyey dagaalkii Malaadkir ee caanka ahaa. xilligii almuntadir billah waxaa yimid dhulkii islaamka ciidankii kiristaanka ahaa ee reer Yurub, waxayna qabsadeen baytulmaqdis. xilligii almurtarshid billah waxaa soo baxay Icmaadudiin as-Singi, kaasoo qabsaday Shaam, waxaana xigtay aas-aaskii dowladdii Zinkiya taasoo dagaal dheer la gashay ciidankii kiristaanka. markii uu dhintay Icmaadudiin Zinki waxaa dhaxlay wiilkiisii Nuruddin Zing. Nuruddin wuxuu dadaal u galay sidii uu u ridi lahaa dowladdii shiicada ahayd ee Masar haysatay, wuxuuna ciidan uu hogaaminayay Asaduddin Sharko iyo Salaaxuddin al-Ayyubi u diray inay dagaalo la soo galaan dowladdii faadimiyiinta. aakhirkiina Salaaxuddin al-Ayyubi waxa uu suurta gashay inuu jabiyo faadimiyiinta iyo inuu aasaaso dowladdii Ayyubiyiinta. dowladahan oo dhan oo magacyada kala duwan leh oo kala ah salaajiqa, Zinkiya, Ayyubiya, waxay ahaayeen kuwa taawacsan magac ahaan khilaafada cabbaasiyiinta, laakiin ayaga maamul ahaan ismaamuli jiray. markii uu qabsaday Salaaxuddin baytulmaqdis oo uu jabiyey kiristaankii kadib oo dowladdii Ayyubiyiinta dhul badani gacanta ku dhigtay, haddana waxaa bilowday burburkii dowladdii cabbaasiyiinta, waxayna qabsadeen ciidan uu hogaaminayay Holoqoqaan magaaladii Baghdad, waxayna dileen khaliifkii cabbaasiyiinta al-Muctasim billah. waxaa dhacday khaliifadii cabbaasiyiinta al-Muctasim billahna wuxuu ahaa khaliifkii ugu dambeeyay ee cabbaasiyiinta ee Baghdad. mogoolkii waxaa jabiyey dowladdii mamaaligta, waxayna ku jabiyeen dagaalkii Caynujaaluud. mamaaligta waxay dib u soo celiyeen khaliifadii cabbaasiyiinta ee Qaahira waqtigii suldaan Baybaros, waxaana khaliifkii koowaad noqday Muntasir billah. waxay ahayd khaliifadii cabbaasiyiinta mid aan kaalin ku lahayn dowladda, laakiin dowladda dabtahay waxay ahayd suldaanadii mamaaligta. khilaafadii cabbaasiyiinta ee Qaahira waxay jirtay 250 sannadood, waxayna dhacday 1517 miilaadiga. cusmaaniyiinta ayaana ku soo duulay Masar, ridayna dowladdii mamaaligta xilligii Saliim al-Awwal, waxaana lagu qasbay khaliifkii cabbaasiga ahaa ee la oran jiray Maxamed al-Mutawakkil inuu ka tanaasulo khilaafada. sidaas ayayna ugu wareegtay khaliifadii reer Cabbaas dowladdii cusmaaniyiinta, caasimadda Qaahirana ugu wareegtay caasimadda Istanbul. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, waxaa inoo balan ah muuqaalkan muuqaalka xiga. wabilaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.